24 saac la soo dhaafay waxa dhacdooyin naadir ah laga diiwaangeliyay dagaalka ay Puntland kula jirto kooxaha Daesh sidoo kale magaalada Boosaaso waxa maanta ka bilaabmay kacdoon shacab oo laga soo horjeedo dadka ajaanibta ah ee ku dhaqan magaaladaas Boosaaso sidoo kale warbixintana waxa ku maqli doonaa ciidanka booliska gobolka Bari oo soo qabtay rag ajaanib ah oo magaalada Boosaaso ka waday falal amni darro ah laguna soo qabtay qaraxyo iyo waxyaabo kale oo la mid ah intaanu warbixintan aan gudagulin wax ka codsanayna ina YouTube-kan ku soo biirto subscribe lahada muuqaalkan leeg noo saarto sidoo kalena gambareelka furto si ay ku soo gaaraanin muuqaalada maalinlaha ayaan halkan ku soo gudbino haddii aan ku bilaabo ciidamada booliska Puntland qaybtooda gobolka Bari ayaa maanta gacanta ku soo dhigtay nin ajaanib ah oo kamida kooxda Daesh isla markaasna magaalada Boosaaso kaga ganacsan jiray miisaska yarka ee bagaashka ah marna aha dadka waraaqda la wareega magaalada ama tuugsadayaasha ah ee dadka lacagta ka qaadan jiray balse waxa la sheegay in miiska uu bagaashka ku wareejin jiray hoostiisa ay ugu xirnaan jireen qaraxyo iyo sidoo kale ay ugu jiri jireen baaskoolada iyo sidoo kale qoryo kale oo badan ciidamada ammaanka magaalada Boosaaso oo maanta ninkaas gacanta ku soo dhigay ayaa waxa ay sheegeen inay ku daba jiraan dad kale oo tiro badan oo ka tirsan kooxda Daesh oo magaalada Boosaaso iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee Puntland ku dhumaalaysanaya ninkan ayaa la sheegay in uu u qaabilsanaa kooxda Daesh falalka amni darrada ah ee ka dhaca magaalooyinka Boosaaso iyo sidoo kale gaalkacyo iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee Puntland sidoo kale ciidamada difaaca Puntland waxay xalay magaalada Boosaaso dhexdeeda ku toogteen nin kale oo ajaanib ah oo ka soo jeeda dalka Yemen oo markaasi qarax ku aasayay bartamaha magaalada Boosaaso taliyaha qaybta booliska gobolka Bari oo maanta isagoo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ay soo qabteen dhowr qof oo ka tirsan kooxda Daesh isla markaasna ay ku daba jiraaniin xubno kale oo ka tirsan kooxda Daesh oo u qaabilsanaa in ay falal amni darro ka geystaanin magaalooyinka Boosaaso iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee Puntland taliyaha qaybta booliska gobolka Bari oo isagoo maanta warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in howlgal ay ilaa xalay ku jireen ay ku dileen nin ka tirsan kooxda Daesh sidoo kalena ku soo qabteen dad ay ku toonsan yihiin inay ka tirsan yihiin kooxda Daesh sidoo kalena ay ku daba jiraaniin niman badan oo ka tirsan kooxda Daesh oo ku dhumaalaysanaya magaalada Boosaaso taliyuhu waxa uu fariin u diray shirkadaha iyo sidoo kale shakhsiyaadka guryaha kireysta waxa uu sheegay in shirkadaha dadka ajaanibta dalka Kenya ay ka fiirsadaan hadda ka bacdin laga xisaabtami doono sidoo kale taliyaha waxa uu sheegay dadka guryaha kireysta in aysan gurigooda ka kireyn qof damaanad leh hadii ay ka kireeyaanna ay gurigooda ku waayi doonaan hadii gurigooda lagu helo inuu deganaa qof ka tirsan aanay kooxda Daesh ama sidoo kale xiriir la leh dhanka kale shacabka magaalada Boosaaso ayaa saaka bilaabay kacdoon looga soo horjeedo dadka ajaanibta ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso xalay ayaa waxa magaalada Boosaaso lagu dilay nin ka tirsan kooxda Daesh oo markaas bartamaha magaalada Boosaaso qarax ku aasayay sidoo kale dad kale oo ajaanib ah ayaa iyaguna magaalada Boosaaso lagu qabtay oo qaraxyo iyaguna shacabka magaalada u maleegayay sidaas darteed shacabku waxay ka caroodeen dadka ajaanibta ah ee magaaladoodii iyo wadankoodii ugu yimid haddana ku dhibaateynaya sidaas darteed shacabka magaalada Boosaaso mudaharaad ayay saaka sameeyeen ay kaga soo horjeedaan dadka ajaanibta ah waxay dawladda ka dalbadeen in dadkan laga saaro magaalada Boosaaso iyo guud ahaan Puntlandba sidoo kale dawladda ayaa waxay maanta la fariisatay jaaliyadaha dadka ajaanibta ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso Yemeniyiinta iyo sidoo kale dadka kale ee ajaanibta ah waxay kala shirayeen sidii amniga looga shaqeyn lahaa cidii amnigeeda laga shakiyana waxa lagu heshiiyay in markaasi la soo qaban doono balse shacabka magaalada Boosaaso waxay ku adkeysanayaan in guud ahaan dadka ajaanibta ah ee Itoobiyaanka iyo Yemeniyiinta iyo dadka kale ee Siiriyaanka ah ee ku dhaqan magaalada Boosaaso guud ahaan laga xaalufiyo dhacdada maanta ay dadka reer Puntland aad uga yaabeen waxay noqotay ninka miiska bagaashka ku wareejinaya sidoo kalena tuugsanaya oo haddana miiska hoostiisa ay ugu xiran yihiin qaraxyada iyo sidoo kale hubka uu talagalay marka la ogaado inuu ku dagaalamo shacabka reer Puntland
oo fariimo badan Facebook maanta ku soo qoray waxa ay sheegeen inaan mar dambe la aaminayn dadka Yemeniyiinta ah iyo Etoobiyaanka ah ee meelahaas wareegaya ee dadka ka tugsanaya sidoo kale dadka reer Puntland waxa ay maanta Facebookyada iyo boostyada ugu badan ka qorayeen in aan waxa weeye aad looga digtoonaado dadka ajaanibta ah ee aadka loo soo dhaweeyay oo haddana Puntland ka abuuraya falalka amni darro ee aadka lidiga u ah midnimada iyo sidoo kale nabadda Puntland